waliba wuxuu leeyahay himilo iyo hiigsi uu jecel yahay inuu maruun ka madhar dhaliyo oo uu gaadho. haddii uu qofku la yimaado dadaal iyo samir, waa hubaal wuxuu horumar ka gaadhi karaa riyadiisa. waxaan filimkan kooban idinku soo bandhigayaa kabtankii hore ee xulka kubadda kolayga ee dalka Qatar, Yaasiin Ismaaciil. yaasiin wuxuu ku barbaaray dalka Qatar, wuxuu jeclaa isboortiga, wuxuu yaraantiis aad u daawan jiray ciyaaraha kala duwan, gaar ahaan kubadda cagta. weligii wuxuu ku hamiyi jiray inuu noqdo xidigaha kubadda cagta ee caalamka, balse si lama filaana waxa uu ugu biiray naadiga Al Ahly isagoo 14 jira. naadigaasoo uu ka bilaabay ciyaaraha fudud sida orodada oo uu markii hore ku wanaagsanaa. muddo yar kadib waxaa la kulmay Yaasiin tababarayaal caan ku ahaa kubadda kolayga ee naadiga Al Rayyan. waxay ku dhiirigeliyeen inuu barto kubadda kolayga maadaama uu yahay nin dheer oo leh qaabkii looga baahnaa ciyaartoy kubadda kolayga ah. kun 1993 ayuu si rasmi ah ugu wareegay Yaasiin naadiga Al Rayyan, wuxuuna ka mid noqday ciyaartoygii heerka koowaad ee naadiga Al Rayyan. 1995 wuxuu Yaasiin ka qayb galay koobkii khaliijka ee naadiyada ee kubadda kolayga isagoo hogaaminayay naadiga Al Rayyan, halkaasoo uu ka bilaabay guulihiisii ugu horreeyay. 1997 wuxuu Yaasiin ka qayb galay isaga oo kabtan u ah xulka Qatar wareegga koobka carabta oo lagu qabtay Lubnaan, inkastoo wakhtigaas aanay guule ka soo hoyn. labadii kun iyo labadii xulka Qatar oo hogaaminayay Yaasiin Ismaaciil ayaa waxay ka qayb galeen koobka Aasiya ama koobabka Aasiya oo lagu qabtay Busan ee dalka Kuuriyada Koonfureed, waxaanay galeen kaalintii 9aad. 2006 oo Qatar lagu qabtay koobka Aasiya ee kolayga ayaa xulka Qatar iyo kabtankiisa Yaasiin Ismaaciil ay ka soo hooyeen guushii ugu fiicnayd oo ay ka galeen kaalintii 2aad. 2006 oo Qatar lagu qabtay koobkii Aasiya ee kubadda kolayga ayaa xulka Qatar iyo kabtankiisa Yaasiin ay ka soo hooyeen guul fiican iyagoo galay kaalinta 2aad. labadii kun iyo 11 xulka Qatar wuxuu ku guuleystay koobkii wadamada Carbeed oo lagu qabtay Qatar, halkaasoo la guddoonsiiyey kabtan Yaasiin midaaliyad dahab ah oo uu mutaystay. Yaasiin kama ciyaarin oo keliya Qatar, waxa uu ciyaaray naadiyada Mareykanka ee NBA-da sida naadiga Indiana Pacers, Dallas iyo Houston. waxaa jiray oo kale guulo u gaar ahaa kabtan Yaasiin oo lagu maamuusay wareegyo iyo koobab caalami ah oo ka qayb galay. wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan Khaliij al-Carab sanadihii 1998 ilaa 2012. tiraba 7 koob oo Aasiya iyo guud ahaanba caalamka oo ka dhacay, waxa uu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu goolalka dhalinta badan. markasta waxaa lagu maamuusaa oo heli jiray jaa'iso iyo koobab ka samaysan dahab oo la guddoonsiiyey.
kabtan yaasiin ismaaciil wuxuu ciyaaraha kubadda kolayga ciyaarayay 24 sano oo inteeda badan oo ahaa kabtan. waa tusaale ku dayasho mudan marka aad wakhti iyo tacab gashato riyo aad lahayd oo aad jeclayd mar uun inay rumowdo.